wiilkan wuxuu yidhi umaan malaynaynin in ay sidaan u saameyn badan tahay. Waxaan waday oo keliya oo aan akhrinayay muddo 3 maalin ah. 100 marna waxaan akhrin jiray salaada subax markii aan tukado kadib. 100 marna waxaan akhrin jiray salaada casir markii aan tukado. 3 maalin oo keliya ayaan waday. 100 marna waxaan akhrin jiray salaada subax markii aan tukado kadib. 100 marna waxaan akhrin jiray salaada casir markii aan tukado kadib. Wuxuu yidhi waxaan ku dhaaranayaa Allaha ay naftiida gacantiisa ku jirtee, waxaa xalismay mushkiladii ugu weyn ee noloshayda haysatay. Dhibaatada ugu weyneed ee noloshayda haysatay ayaan xalismatay. Ilaahayga naftayda abuura ayaan ku dhaartee, waliba waxay u xalismatay si ayadu weligood dhicin oo kale. Yacni dhibaatada waxay u xalismatay si in ay igu dhicin weligeed oo kale. 3 maalin oo keliya ayaan akhrinayay. 100 marna salaada subax markii aan tukado kadib. 100 mar kalena markii aan salaada casir tukado kadib. Mushkiladaydii way xalismatay, waliba mushkilada ugu weyn ee noloshayda haysatay waxayna noqotay sidii ayadoo weligeed igu dhicin oo kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janaalkeena, soo dhawaada walaalaha sharafta leh. ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub iyo rajo cusub oo Ilaahay ka leenahay in uu naga dhigo dadka loo dambi dhaafo biidnillaah. intaa kadib walaalaha sharafta leh, sidii caadada inoo ahaydba aan isxasuusino inaan ku salina xabiibkeena Maxamed. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. soo dhawaada inta xanuunsan, Ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa in uu siiyo caafimaad taam ah. intii muraad lehna inuu Ilaahay muraadkooda u sahlo. intii guurdoon ahna Ilaahay guur xalaal u sahlo. intii shaqo doon ahna Ilaahay shaqo khayr qabto oo u sahlo biidnillaah. walaalaha sharafta leh, waxaan ka hadli rabnaa maanta qisooyin cajiib ah kuwaasoo ku saabsan taajud dikri qisooyin ku saabsan ayaan ka hadli doonaa biidnillaah baari maanta. haddaba taajud dikri maxaa la dhahaa? taajud dikri waxaa la dhahaa dikrigan aan akhrin doono: laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكريان أو لده تاج الذكري قصوين كلا عركي أيان إذن لو ذاك دونا مانتا بإذن الله. قصدين كوبات وحيكو صعب سنتهي ويل كان وحو يري وحان دائمي أو أنجوكتي تاج الذكري أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكريgaas ayaan joogtay ayuu yiri, iyo xawl qalada oo لا حول ولا قوة إلا بالله, iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, gaar ahaan saliga ibraahimiyada ayaan joogtay ayuu yiri muddo 5 maalin ah. waxaan joogtay taajud dikri iyo xawqalada iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan joogtay muddo 5 maalin oo kaliya ah. Ilaahayna wuxuu igu irsaaqay shaqo aan in badan raadin jiray oo habigayga ahayd oo aan jeclaa. shaqadaasna waxaan raadin jiray oo aan daba socday muddo 5 bilood ah. shaqo aan muddo 5 bilood ah daba socday oo aan lahaa shaqadan ayaan rabaa oo aan daba taagnaa oo 5 bilood aan helin, 5 maalin ayaan ku helay. kadib markii aan akhriyay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, iyo xawqalada oo laa xawla walaa quwata ilaa billaah, iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, gaar ahaan markii loo akhrinayo siiqatu ibraahimiyada ama qaabka ibraahimiyada. 5 maalin oo kaliya markii aan akhriyay wuxuu yiri waxaan helay shaqadii aan 5 bil daba socday ee aan weysanaa. qisadeena labaad ee maanta waxay ku saabsan tahay wiilkanna wuxuu yidhi taajud dikri ama laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayaan waxaan akhrinayay muddo 4 maalin ah. waxaan ku celcelin jiray subax iyo galab. markii aan subax iyo galab muddo 4 maalin bas ku celcelin jiray
waxaan arkay ayuu yiri duco walba oo aan ilaahay ku duceysto ama aan baryo in ducadeeda la ajiibayo yacni waxaan noqday qof ducadiisa la ajiibo 4 maalin ayaan subax iyo galabba waxaan akhrin jiray taajud dikri kadib wuxuu yiri ducadeeda waxay noqotay mustajaab oo waa la ajiibay ilaahay waxaas isii hadaan dhaho wuxuu yiri horay ayaan ka helayaa bal arag mucjisada iyo awoodda ay leedahay xuska alle qisadeena labaad ee maanta waxa ay ku saabsan tahay wiilkaana waxa uu yiri waxaan laazimay 3 maalin in aan akhriyo taajud dikri 100 mar waxaan akhrin jiray ayuu yiri salaada subax kadib 100 marna waxaan akhrin jiray salaada casr kadib waxaan akhrin jiray laa ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir muddo 3 maalin ah 100 marna waxaan akhrin jiray salaada subax kadib 100 mar kalena waxaan akhrin jiray salaada casr kadib wuxuu yiri ilaahayga ay nafteeda gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartay waxaa xalisbatay dhibaatadii ugu weyneed ay haysatay noloshayda waliba waxay noqotay sidii ayadoo waligeed igu dhicin gabadhaana waxay leedahay waxaan ahaa qof la sixray waxaa li adeegsaday sixir aad iyo aad u xun waxaan ka go'ay waalidkayga iyo walaalahay noloshii ayaan ka dhacay waxaan nacay dadkii oo idil waxaan go'aansaday ama aan jeclaystay inaan dadkayga ka dheeraado mar walba oo aan dadkayga ka dheeraado ama aan ka fogaado waxaan dareemi jiray farxad iyo raaxo laakiin waxaan akhriyay tiri taajud dikri laa ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayaa intii 4 bilood ah ku celcelinayay ilaahay waa uu i caafiyay tiri waliba caafimaad taam ah ayuu i siiyay haddana waxaan la noolahay dadkayga waalidiintay iyo walaalahay aad ayaan u jeclaaday halka markii hore dadkayga la igu diray oo aan noqday qof dadkeeda ka cararta mar walba haddii aan dadkayga u soo dhawaado waxay tiri waan xanuunsan jiray laakiin markii aan laazimay dikrigan laa ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ilaahay ayaa igu caafiyay haddana waxaan la noolahay oo aan la joogaa waalidiintayda iyo walaalahayga in ilaahay la xuso subxaanahu wa tacaala ma ahan wax sahlan gaar ahaan dikrigan haddii aad akhriso waa adigoo alle subxaanahu wa tacaala si aad ugu dhawaaday in ducadaada uu alle subxaanahu wa tacaala kuu ajiibo in mucjisooyinka iyo kurbooyinka ku haysta uu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaafeedo in dhibaatada iyo daboolka ku saaran uu kaafeedo haddaba dhibaato walbo iyo baahi walbo ku haysto adigoo u niyeysanaya aqri dikrigan laa ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir insha allah faraj iyo isbedel degdeg ah ayaad ku arki doontaa waliba muddo kooban una niyeysa meeshii aad ka baahan tahay haddii aad awlaad raadis tahay haddii aad shaqo raadis tahay haddii aad xoolo doon tahay haddii aad guurdoon tahay haddii deymo lagu leeyahay adiga muhiimadda waxay tahay meesha aad ka dhiban tahay in aad u niyeysato oo aad alle subxaanahu wa tacaala ku barido oo aad weydiisato in uu baahidaada ku siiyo adduun iyo aakhiraba waa mahadsantiin walaalaha sharafta leh muuqaalkan meeshan hadda soo gaartay fadlan like saar u shargalay walaalaha kale si ay khayrka uga faa'iideystaan qaybta hoose commentigana aan ku nooleeno aan ku xusno xabiibkeena maxamed اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومهتنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.